Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawada ku soo dhawaa mowduuceena maanta. Waxaan halkan ku falanqayn doonaa dhibaatooyinka laga dhaxli karo dhafarka ama hurdo la'aanta. Dhafarka iyo hurdo la'aanta waxaa laga dhaxlaa dhibaatooyin badan oo kala duwan, maadaama caalamku isbedelay oo habeenkii iyo maalintii ay isku mid noqdeen xagga dhaqdhaqaaqa. Waxaa aad u soo baxaya dhibaatooyin badan oo la xiriira hurdo la'aanta ama dhafarka habeenkii, taasoo na dareensiinaysa ahmiyadda hurdada iyo faa'iidooyinka caafimadeed ee ay hurdadu wadato. Sidoo kalena, dhafarka ama hurdo la'aanta waa wax khilaafsan sunnada Eebbe ugu talagalay qofka bini'aadamka. Eebbe wuxuu Qur'aankiisa ku xusay dhowr meelood in habeenkii loogu talagalay deganaan iyo hurdo, maalintiina nolol iyo dhaqdhaqaaq. Qofka bini'aadamkana labaduba uusan ka maarmi karin. Waxaa jira fikrado qaldan ay dadka qaar aaminsan yihiin ayaa waxaa ka mid ah hadduu qofka habeenkii soo jeedo oo maalintii uu hurdo in ay ku filan tahay oo uu faa'iidada hurdada helay, laakiin taasi sax ma aha. Sababtoo ah daraasado badan oo arrinkan laga diyaariyey ayaa waxaa lagu arkay in qofka bini'aadamka jirkiisa uusan isku si u shaqayn habeenkii iyo maalintii. Habeenkii maadaama loogu talagalay nasiino iyo hurdo, unugyo badan oo jirka ka tirsan waxaa Eebbe uu ku bargaraamiyaa in ay shaqadu yareeyaan ama ay hakiyaan, iyo weliba xubno qaar inay yareeyaan wax soo saarkooda sida qanjirada soo daaya hormoonada dhacaanada jirku u baahan yahay. Maalinkiina waa cagsi, oo qaybo badan oo nasanaya habeenkii ayaa la howlgeliyaa maalintii. Sidaa darteed, hurdada maalintii ma gudi karto tan habeenkii. Dadka habeenkii shaqeeya ama dhafra waxay la kulmaan dhibaatooyin ka dhasha culays saarista jirkooda oo u baahnaan lahaa xilli nasasho. Taasina waxay dhalisaa dhibaatooyin dhowr ah, waxaana ka mid ah hurdadu waxay kobcisaa difaaca jirka. Waxay kaloo awood dheeri iyo firfircooni siisaa unugyada jirkeena ee Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala ugu talagalay inay ka hortagaan waxyaabaha jeermiska ah. Sidaa awgeed, dhafarka iyo hurdo la'aanta joogtada ahi waxay keentaa in qofka jirkiisu iska difaaci kari waayo xanuunada. Hurdada kordhisaa caafimaadka iyo dareenka maskaxda. Dhinaca kale, qofka dhafra ama hurdada ka maarma waxa uu dareemaa deganaansho la'aan iyo inuu si sahlan u xanaaqi karo, maadaama dareemihiisu kacsan yihiin oo habeenkii oo dhan shaqo ku jireen. Hadduu qofka dhafarkaas u barto, waxa uu ka dhaxlaa niyad jab iyo diiqad iyo welwel. Sidaa awgeed, daraasado laga sameeyey dadka laga daweeyey diiqada waxaa lagu ogaaday inaysan helin badankood hurdo ku filan. Hurdadu waxay yareysaa miisaanka qofka, laakiin dhafarka ama soo jeedka waxa uu keenaa cayil iyo buurnaan. Waxay cilmi baarayaashu arkeen in dadka dhafra 30% ay kaga halis badan yihiin cayilka iyo buurnaanta dadka hurdada hela. Taasina waxaa lala xiriirinayaa in ay hurdo yarida ay yareyso maaddo loo yaqaan leptin, taasoo qofka dheregta dareensiisa. Wuxuu kaloo dhafarka kordhiyaa maaddo kale loo yaqaan ghrelin oo ah hormoon dareensiya qofka gaajada. Waxay kaloo ka hortagtaa sonkorta iyo kaadi macaanka, maxaa yeelay waxaa la arkay dadka dhafra in ay halis ugu jiraan cudurka macaanka noociisa 2, taasoo ka dhalanaysa weerar ku yimaada qaabka jirku u xakameeyo ama u koontaroolo sonkorta cunnada laga helo. Dhafarka la laazimo waxaa ka dhasha in garaaca wadnahaaga uu siyaado. Taasina waxay keentaa in cadaadiska dhiiggaaga uu bato, taasoo culays saari karta wadnaha. Sidaa awgeed, qofka wuxuu halis ugu jiraa xanuunada ku dhaca wadnaha.